sira badan oo qarsoona sidoo kalena la weydiiyay su'aal ahayd in uu qabo Safiya Tusmo iyo in kale waxaanu ku jawaabay in haba yaraatee aanay ahayn xaaskiisa laakiinse ay ahayd qof saaxiib ah oo isku dhow haddaba si codkan oo Safiya Tusmo ay u soo dirtay ayaa waxay ku sheegtay in markii su'aashaasi la weydiiyay in uu dhaho waan qabaa taas oo ahayd mid ay rabtay iyada maadaama hore waraysiyo fara badan ay u siisay shakhsiyaad kala duwan ay Safiya ku sheegtay in Cabdi Ciise uu qabo Safiya Tusmo haddaba si arrinkan ayaa caddaynaya in haba yaraatee Cabdi Ciise aanu ahayn shakhsigii ka dambeeyay muuqaaladii iyo sawiradii lagu baahiyay baraha bulshada sidoo kalena khaladka weyn ay tahay Safiya maadaama wiilkani ay sharaftiisa iyo cirdigiisaba ay meel kaga dhacday Safiya oo markii hore dadku ay u xukumeen inay tahay shakhsi wanaagsan sidoo kalena ay ahayd in dambi laga galay ayaa hadda caddaatay waxaana u muuqata Safiya mid dhexda baalanaysa fadeexada kala duwan oo ku saabsan in iyada muuqaalada iyo sawirada sida kaska ah ay isaga duubtay baraha bulshada u soo gelisay Cabdi Ciise waraysiidii uu bixiyay waxay ahaayeen kuwa wax walba ay ku cad yihiin sidoo kalena waxa uu muuqday shakhsi la dulmiyay oo la isugu tagay baraha bulshadana dadkuna ay xukumeen shakhsi kaliya waxaana waayadii ugu dambeysay ay ahaayeen dadka Soomaaliyeed kuwa baraha bulshada ku jira in hal qof haddii uu dhawaaqo qofka kale la xukumo taas oo labadooda la isku dhageysanin Cabdi Ciise oo in badan ka aamusna arrinkani ayaa markii ugu dambeysay waxa uu ku soo gabagabeeyay arrinkiisa in haba yaraatee aanu ka dambaynin arrinkaasi waxaana waraysiyo iskhilaafsan ay bixisay Safiya Tusmo ku tilmaamtay Cabdi Ciise in uu yahay shakhsigii ka dambeeyay sidoo kalena uu ahaa sayigeeda haddaba se codadkan ay isweydaarsadeen ayaa u muuqda kuwo gebi ahaanba